السلام عليكم أصحاب تقالي جميل بشوكتان وأنا سلامي يوتيوب كان قد عاون السام وارس مريس فلان دا كعسبتان لايك شير سبسكرايب انتبه إلاوين صدو هذا منكين وايا ما أنت محني وذا سيدا تتلك كسو أركتين برنامج تتلك كقرن أي أسكوه السنة أما أني وذا أما أني فلانقينايا صدو هذا مركوات سومالين حامل بشوكتان قبدين يريد إذن لي قلبي تقلبي والله بلا إنا قصلو حيرا إيكدو مفهمتين أرنت أول كان كسر هلا أيان رباها الإلا أنا جو كفوجانيني إنا كدهو برنامج واحد شري أنا أنص هاي واحد علي هنيك واحد هاد أبريل فول دايز ما أنت بنت أدون كعيد البور مجال أي عيد البور عقلي قبته ومسكح لي إشقين إسو وأكتهاي teeda kale aan rasmi ahaan hadaan been sheegay before maalmaha ka horeeyay ama bilooyinka ka horeeyay ayaan been sheeg lahaa Soomaali Maxamed Kood waxa waaye dad la qiyaani kara dad been loo sheegi kara ma ahan dadka YouTube-ka ku xiran ama aan rasmi ahaan ugu xirnaa dad aan jecelahay agtooda aan sharaf ka leeyahay mar walba ee dagaal ee dinto haday ayaga ahayn Soomaalida hadana ka dhalan lahayn anu mar walba iska dhiman lahaa soo alxamdulillah ku faraxsanahay Soomaali Maxamed ka dhashtay oo ayaga aan gabadhooda ahay beenna u sheegay inaan xumeeyana ma ahan laakiin dadka YouTube-leyda badana waa aragteen way jiraan barankiyada la sameeyo wax walba lagu sameeyaa even qof walba fikir ku keensada fikir u ah laakiin baranki waa la sameeyaa ma ka soo dhigay aan cuniga dhalay dadka waxay dhahayeen April Fool Day waaye so hadda ani rabo inaan been sheego oo beenta sii wada waa soo hadlaa waxa dhila April Fool Days ma ahan waa run arinta aan sheega تذكر أرنتها ديرونتها أبريل فول دايز كهرة سوقنا لها أنا قد دمرة دبكي دبعت هذا اللي إجستي وان دبول وان قريري لكن وحاول امتحانات كقارن مرة أقلي وضوال تشابيا أنا ما أنت بنت أدون كبرنامج قصة صادقة بارنا تيك توك يدوي حسوق لسي سيدو كله أهل على إيقاعتي سواس برانك وحرون ميهن برانك يهن أهل نحافظ جو أنا سيدو كله حافظ عن شوقي وحنيك عند اللي مشرت كل قفل بعقل قبل ووجه هاي ويك لصدى في 2 weeks ago إنا بنباس جوجي باشالة راح يسناي everybody وأركاين إنا مال الباروس كتو معير شقي سناي يسوح البتكان وكل هاي قفل بوجه هاي سو أنت أخلق وصاحبك ويوجد أرنتي إني برانكتها سو تتقارن واحد سكترا تدي عندنا تا سيد ويل كان صاها لا عمل وحس لها رسمي appointee كاشي you know ولا هاتني رجعتها waxa wanaagsan in point fiican igeysatid oo ah Soomaalida la soo fariisatid dadka qaarna markii la iloobo ay rabaan in la soo xasuusto ee YouTube ku soo laabtaan ay dadka ku dhagaan soo ani waa ka xumahay inaan noqdo qofka YouTube ugu soo laabanay marka arinta sameeyay aniga hadii aan rabo ina wiilkaas aan kala dhamaan aan u sheegtay in cunug u dhalay anaa wici lahaa dad dhahay way jeceshahay dadkaas laga yaabo inuu asaga soo dirsaday xidhayn oo jecesha ana hada jecelahay waa wicilha waa raadsan la waxa dhila waa ku dhale been raad mala beenta wala soo qabta laakiin ana ma wacan asaga ay soo wacay okay markuu asaga soo wacay waxaan dhaxmaray wuxuu yahay before wuxuu ii soo diray whatsappkiigu wuxuu igu soo diray linkigi barnaamijka YouTube soo gali wuxuu igu dhahay maxaa ka jira ha waa run baan ku dhahay waan dhalay because wax lagu dheelo way istaahila ninka ragga ee xaaskiisu dhaqalaysan waayo wanaajin waayo in lagu dheelo meehe in sid buloon amal loo harantii way istaahila okay أنا شلون وناجا أكو سمي هو أركويس برادر حمانا يجو بدرشي okay أضاء حميسي أيها هذنا كسي وناتي then ما أنت مركا أركتي أضو ما أخلي قال لا ده المها هذيك أنت هذا كسو دشي سيدو ودلنا يا ميسو يدسي okay واحد سرا ده داون ويدي ده ودو أرنت سا يقد قاندقي ويسي وده بان ويدي تتكاسو أيد ودو أو يجو يري أرنت وابين dadka ay weydiinaysid adii ay isku mid aan agteeda ka tihiin I don't care nag warkeed qaadatana miihi nag dad waji kalena miihi yani alxamdulillah always rasmi aniga rasmi cidna ima biish ana isbiila qofan waji kale ma jirto Soomaali Maxamedna waan ka wada dhalanay cidii qaldan cidii saxana way ogtahay okay way soo wacay wiilkaas wuxuu igu dhahay maxaa ka jira arinka uurka ah waxa ku dhahay waa sax wuxuu igu yiri maxaa hooyada ugu sheegayso hooyadii uma sheegin aan dhahay hooyadii uma sheegin
أنا محمس يقصو دروس قف قمنا مسج لا صدر even هذا أنا كود الله تقوم شيئين وايو أبا مستاشد I know you bro ما تيدوح أبا لده هذا استاشد أبا كان جبوت كود جوا الشوك كسل عسن أياد بيلان لهاد أو أنا جا أي قرصني والبرق إيه المهدل وكفانا أنا جا ضمر إيه أنا ويل إيشوجا مركل اللي يقولسنا يكون هبرادر ويل إيشوجا هذا مرك أبا نيم كقصيص أما أو هذا يعني إن المهيج أجادار ربي ilmahan beenta ilmihii runta ka horeeyay ee Djibouti joogay ma biilatid noloshaada adoo magac cunugaaga sheegaysid lagu ma arkin aniga ay qabtay sanad iyo bilooyin aan noloshayda ka maqlin mar aan kugu ark Hargeysa adoo maxal dhigi jiray beenta sheegayso dadka reer Hargeysa ku soo sheegeen wixii gurigaas uu ku burburin waxa uu sababa beenta ay sheegaysay iyo waxa adiga aad aastay ma fahamtay marka la yahay ku dheelayna ma ahan in aan qofka bini'aadan kama walba ku dheeli jiray before sa ugu wanaagsan qof walba uu og yahay rasmi ninkeeda lagu wici jiray because waxa aan kansaday wanaagayga qof walba arki jirtay cid ku taqaantana ma laha before rasmi been ma isku sheega misruna la isku sheega okay jisaar waxa la dhahay jisaar naaru gala jisaaraad haadi gabadhi walaasha ahayd soo garab qabato ku wanaajinaysay ayaa ku jisaartay soo ina maanta kugu daldeel ani baranki kan sameeyay waxa 24 hours kadib aan xiraaray waxa u xiri waay wixii asaga dirtis marka arka asagoo isoo wacaya dhahay oh my god ninka shalay ilmaha ka soo rido ku dilo jiraanjarta ka tuure maaba ku soo wacanaya rasmi point haystay ninkan waa xawayaan inta ku dheeli karta ku dheel waana kugu dheelay 3 days aan kugu dheelay okay hada maanta runtii soo ogaatay oo cod ayaga duubtay ay YouTube kala soo farsatana ana hada kule wax lagu dheelo waa istaasha waana kugu dheelay ma fahamtay cunug aad hooyadiis ka warqabin si asaga uga warqabaysa brother ma la isku dheela runta ma laga hadlaamse ciyaar la wada cunug aad hooyadiis ka warqabaysa ma aniga ma cunug ka warqabay hooyadiis ka warqabaysa ilmaha waxa ka horeey hooyadii aabaha deys wanaajin waayaan ilmaha meesha wanaag uma yaalo ma fahamtay okay warkii yani igu sii dheereenin أنا عنقيقة أسرق عنتي سوق دنتا because أنا واقرناي أسرق أمانت إن أنا الشيء يوكلفه because برانكي جيجا وأسقسي وده سفاء أسرق وديل ما دام أركينه على وحس ده كوديل كم واحد لوديل ويستاهله تهذا كلينه الدقيقة إنه أقل كمان كل جرمه عنقو وأنا ترى يجا توري عندي بحرقيسة أنتو أنت ديس كوديك بحاي ومقلاي وني إسورة هذه من هرقيسة ده ده oo aan soo tago Nairobi maad gabadhi ma dhimata ma nooshahay cuniga ma ku jira oo na dhihin ayu intuu soo wixii ugu dhahoya maxay igu sheegays ina ay dhashay ma fahanteen qof walbana uu idareemi karaa aan meesha ka kululahay mise aan wax ka dareemayo nin shalay inta guursta asagoo shilni haysan aad wadankaaga dadkaaga gurigaaga inta uga tagtay wax walba noloshaada aabayleysay aan raacdo la guurtay abaalkaaga ka dhigo inuu dabada haraanti ka galiyo cuniga ka soo rido telefoonka ka qaato ka jibiyo shilinka gacanta ku haysan uu ka farmaroojiyo kaas nin ma la dhigi karaa waxa intaas dhan aan u qarinaayeen waxay tahay inaan ahay naag iska adag oo tarbiya lagu soo koriyo oo wax walbana qarin karo aniga soo gudboon wuxuu yiri door jeer aniga qalad liiga galay suuq qadaaranaya horta codku waxaan kuugu soo diray waxay ahayd inaan ku tuso inaad doqon aad tahay ma fahantay ana hooyaday second daqiiqad every day aska warqabnaa you know me bro ma fahantay aada ii taqaanaa dadka ani hooyada lagu qasbayo wac la dhahay oo hooyada loo biilay mihi teeda kale ana hal hooyo meedalna boo laba hooyo dhashay ma fahantay ayadii soo korsatay 3 bilood oo jiro ilaa intaan ka weynaa hooyadii waa ayadii maahan hooyadii dhasho xamar joogtana waa hooyadii I have laba hooyo ma fahantay aabahay alxamdulillah sidoo kale waa ka warqaba arrinkan kugu haysta wuxuu yahay waxa rabay ina xaqiijiyo mas'uuliyad ayaa isaaran mas'uuliyad say ku saarnaani adigu mas'uuliyada ka warqabtaa anigaaba adi mas'uulka ahaa ma fahantay anigaaba adi ka fikir jiro ku ogaan jiray intuu maray intuu aaday muxuu cunay muxuu cabay muxuu xirtay naagta ka fikiri jirta ahay brother naagta waxaan ahay wiiga dhan guriga ku dhex gaajeysnad inta dhaqaaqado ashin usoo shaqeyn weysay sugaysa rasmi wax ay xayeysiin ka sameeyso ama wax ay dad alaab wax xayeysiiso loo soo diro u fadhiyaa tahay ma fahantay naagta waxaan ahay hooyada aabaha ku biili jirtay soo jisaarnimadaada سائدة أقحمها مكانته ما أهان إن أنا ويلكس وح أقبتي أم وح أنسي إن الشيء لكن أسيغن كل برنا أنا هذا قف عبينا أم وح الشيء
mar hore waxaan dhihi lahaa saana kuu qabtay saana aha kana aha ma fahantay maanta waxaan u hadlayaa waxay tahay arrinka brankiga aan sameeyay markuu isoo wacay run way aan dhahay waa ka cod duubay nin rag maaha kan cod ka duuba aboo ma fahantay codka aad duubtay maanta ay YouTube ka soo dhigtay hadaa iga hayn lahayd aniga waxyaalaha social media maalmaha la wareejiyay camal maxaa sameyn lahayd waa isoo dhigi lahayd maaho alxamdulillah isku filana lidhaha waxaan hubaa amase aan maanta aniga isku kalsoonahay waxay tahay inaad adigi noocaaga camalba uuna iga haynin fara aan dadka bulshada dhexdooda inta la isoo dhigay igu ceebeynayo because qofka codkaaga recording gareey haduu ka hayn la waxyaalo akhlaaq darre uu soo dhigi lahaa laakiin ilaahay waxa lagu mahadiyaa si xalaal ah la wada ogyiina isku guursanay si la wada ogyahay inaan ku kala tagno ma fahantay naagaha nimanka ku dhagdhawo waxa la dhihi jiray videoyada xun iska doobana ma yani hadaa ahaan lahaa oo maanta ninkaas ninkaygu ahaay uu hayn lahaa video qaldan oo rasmi ay leedahay banaanku soo dhigi lahaa because nin asagoo ila hadlay hadda recording gareey muxuu recording gareynay inuu dadka tuso inuu asaga qaldaneen anina uu qalad saaro ana brother waxa ku sheegaya that was prank ma fahantay waa dhax fadhida prank 24 hours loogu talagalay adaa sii dheereey because adaa isoo wuxuu igu calaacalay marka igu calaacashay aniga waaya waxas dhahay cuniga maxaa ka qaldan muriyoonaya mise hada la soo haya cunigan Soomaa kii jaranjarta ka tuuray cunigan Soomaa kii ku dilay cunigan Soomaa kii telefoonkaaga ka qaatay cunigan Soomaa kii boostajada boorma inta ku keena dhahay meesha aadi kartid aad adigoo dhiig bixisid oo ooynaysid ka soo tagtay wajigii idin dhaxyaalo muxuu yahay hadaa mar dambe aniga afaare aan leey ka soo hadashid inta waxood igu sameeyay on telefoonkii ugu jiro ayaan soo bandhigayaa maanta waa awooday jugta jirkayga u geysatay in aan soo dhigo social media magacaaga in la waayo waan awooda oo dhibka ii geysata Soomaali Maxamed marka dhigas Soomaali Maxamed noo kala garqaada marka daraad ximeenaysay war gabar hadaa isku xumaataan gabar guursatay familkooda ugu maatay waa ka soo doonatay si sharaf leh lagu siiyay wadankeeda ku guursanaagteeda raranayda nin naagtiisa uu raran kara waa ay kaxisay hargeysa dadkii aan ka saayay fanaaniintii waa iga dhax bixisay boorma ay geysay inta waxa ii wadaad inaa hilibkeyga jarjarto maan subaxda jaranjarka iga tuureysane hadaa maxaa la jir kuusi joogi lahaa maalinta ka dambeysana waa ay qalqali lahayd ma fahantay laakiin alxamdulillah nin ani idilo ii gacan qaad oo ilmiyeyga banaanka ku soo daaday sikin lama sii noolaadeen waana ka soo tagay hadaan ku jecla kaama soo tageen ma fahantay Nairobi kuma soo laabteen sababta Nairobi ku soo laabtay waxay tahay in arrimahaaga iyo barnaamijkaaga iyo waxaaga ina iska soo baxnay aragtidaada meesha ku iloobo haduu rabitaan ii ka jiro hargeysan joog la hargeysa iga mixigtid waa wadan ani adiga u simanahay adiga milid hargeyso anna mali labadayna waa u simanahay igama ceerin kartid igama soo tarxiili kartid hargeysan kula joogi lahaa fanaaniina wada heen meel baan kaaga soo hormaan lahaa rabitaan duyuu ka jiro waa ku saban lahaa marba meesha taagantaan soo maraa laakiin inaan ani ku riin waxa ku cadeynaya 20 days aan joogo hargeyso marna aan istal ku jiro marna aan tigid raadsanay indhahaaga ima saarin ma fahantay waxa indhahaaga ii saari waysan waa aniga naagnimadeeda because nin ani ii gacan qaado ii dilay oo wadankiisa igu gumeystay subaxa baska isoo saaraysa ay ugu lahayd guriga kiradiisa hada guriga ka tagaysid guriga kiradiis keen war ani mihi naag joodari iyo sariir iyo maacun ka daba hadasho shalay markaan ku raacay alaabtaydan gaday waan ku raacay ana alaabka ta gurigayga sharax hargeysa ilaa boorm markaan soo baxayna waan kaaga soo tagay wax walba buuxo meesha adii midgaanimada telefoonka ku qaadanaysi gurigayga buuxo alaabtiyo buuxdo laptop wax walba gurigaas dhigay saa u buuxo ayaan kaaga soo dhaxbaxay ma fahantay alxamdulillah maxay maad Nairobi gurigii ka shidan alxamdulillah waa guri adoon wuxuu ii taray malahan ayaan deganahay waan shaqeystaa waxa adiga kaaga baahanahay iyo noocaaga kale ma jirto waxa ku leeyahay hadaad mardama aniga afaare aan leeyahay istiraahda rasmi point ka helasa soo qaado balani axadi waxa igu sibrada aan ka haay wajigayga sida u bedeshay waa is ogtahay lagu ma sheegay ma fahantay dadka qaar markii wax lagu sameeyo social media soo dhigan sibrada dibka ku dhacay ani waxaan soo dhigi waxay tahay waxaan fiirnay wilkas shala wanaagina ka dhaxeeyo waxa isla rasmi haduu xumaaday ha ka daba xumaani gabdho badan arka social media la wareejinayo oo intuu ninkooda dilay wajiga laga halay jirka wax og dhacay la wareejinay aniga jugta la ii geystay daawac la ii geystay ma soo bandhigin qalbigaygan ku heystay social media ma dhigin waa haya sibradu oo farxaan ii geystay dibka waa haya waxaan soo dhigi waxay tahay rasmiye ninkaasi dad shal wanaag isku barta aheedeen rasmiyay ka wanaagsanaw oo ku soo ceyn karin inta meel ku soo fariisto kuma soo ceynin afka aan shal kuuga amaanin kuuma caynayaan ku dhahay laakiin ana doqon hay malayno maadaama aan ku dhahay kuma caynay hay ugu dul soconin brother ma fahantay
هذا next time isku tiraadid rasmi pointa ka haystay bahdil balan yaxdi waxa ina Soomaali Maxamed u soo bandhigo joogta ay geysatay intaas warkaas aniga wiilkaas halka hanooga ekaado markii la dhahayo waxa taqaanid guurso waxa taqaanid adashide been ma ahan because ani hadu waxa aqaana ahaan lahaa intuu ikxeeyo wadan ana garanayn igeeyo igu dilo ilmahayga ku dilo war telefoonka dadka ka wacan lahaa waa ninka horteyda ku jijabiyay isku dayay ina aan baargeyso ku dhax sakaraado ku dhax jirado ku dhax baabao ku rafaado laakiin may sadicin because dadan ka dhashtay hooyii aabay dhalan Soomaali Maxamed aan ka dhashay everybody Soomaali Maxamed ay kacdo xumaantaada anigoo afkayga kala furno qof walba xumaantaada aragtay oo everybody ay ku dhaayeen gabadha waa xumaysa adoo wadankaaga joogto soo ani Soomaalida iyo hadash inaan hadlo ma yahay munaasab laakiin hadda waxa u soo hadlay waxay tahay chess ka YouTube kala soo farsatay هذا صفر سنة وما أنت عادي لا عنقص أنا ما دلنا ما بقعد بحلين لكن أرجع كوكو يستوعب مسؤولية بإسارة مسؤولية كبرد أكاك حس نيروبي أو أودن كينا جيسي أو أروح والبق واحد قصنا كذي تشبسي عنق على شيء ده كجري أدي شيء ترانجر أكسر تورتي هذا نكسر وردوني مسؤولية عنق على كاف ولا سمحتها أبو مع هالوانا كسينا يا listen to me okay هذه مسؤولية واحد قوة رئيسة أو أبني ما أدنيني يصير كان أبقرين يسوع أو كوتشو كشبوتي إكبر المساكين ترشي عنها كعجبان كاسبيل أو كاسي أبو نقو رسمي كوم بهنا مفهمتي حتى إذا ما تدقود الله أنا وكامسوجين عنه كاسا كعجبان إن بيشيد برادر كاسبيل تهذا كلمة كديس إلما ما يدل أنا الحمد لله مدلس ميه قوميس ميه أنا يران شقيست وان دلوان كفانا حلي مقعيق أنا لقرنا إنه social media اللي كسين أيان دلي social media أنا حاسة قل أنا ويل ده هاي ويل بيجوا مزميل الله هاي داي أيان social media على سوقل لكن إنك عنق أودل إنكيري إجلاس كعناها أقولين وعادي تذكر أنا أباها إني مسؤول لك عن نقطة كلاس عنا القصية محا إلمو وحسيسا أديك مركوات شقيسو أديك مركوات نرش هذا كافي مركز رسمي هوس صوفيري قف كاسر ريوليغا كورلو مفيري أبو مبانتي so cool down مرد من إري رسمي لديك هم مغلي كري guys إذن كانوا واني سلامة يا أصحاب تقالي كميلو الباجوكتين واني شعلا هاي قلبي تقلبي you know everybody ogyihiin in prank la sameeyo prank waxadan igu horeeyay prankina waa ka hore ani ninkan aan u sameyn jirnay been ay ruum wuxuu ahaadabo aadaaban jirteen prankigana 24 hours lagu talagalay waxa 24 hours ka qaaday waa asaga dartiis because qofka dhaqanka ee waa lagu dheelaa qof xilihiisa daryeeli waayay ogaani waa in lagu dheelo uu istaahilaa soo Soomaaliyeey hadda ila qabtiin wakaas hadin ila qabin oo idinka qaldanahay wax qaladni sheegan 140 ku quraanka nigu raali gelinaya that was prank teeda kale waxa halkan kii loo waro inaan sheego wuxuu yiri horta asagadna iska warqabin buu kala hadlaya cunuga hooyadiisa waxa la isoo sheego oo dad u dhow isoo sheegeen inay hooyadiis dhimatay aabiis nool yahay oo agoon in rajo kala baro af Soomaaliga ba aqoon oo leeyahay af Soomaaliga baro rajo waxa la cunuga hooyadiis dhimatay agoon cunuga aabiis dhintay waxa taaganta hooyadiisa dhimatay cunuga aabiis nool waa agoon af Soomaaliga barin af Soomaaliga saxaafanta alxamdulillah cunugana dib la aan dhalay walaashay macaana ay dhashay Allah ay daayo dhimashada u saadinaysan adii ka soo bixin qof nool hadilin ما فهمتي قف نولا صوت عجنو كفيرنا أدلي سأبو معان برانكي جنا مركو هور أنا إسك سمي لكن مش لو قلت له قلوب برانكي جم تجي because نوع عمل الجودل ديلو والجودل ديلي هم تايم سيسوي عيس أذو أونيس سو أو أنت كان كعجان بهنا ويحو كعجان بهنا كنت شبوت تشوفه برادر نوك لك حياة قلبي تو قلبي good night